الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي أفراد كتاب كيني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله وكتاب كي ككوبنا تقريبا لو بقول أو حكمه يفائده لقسو أروريي كتبتا الشيخ ابن القيم رحمه الله. والصادق يرزقه الله مهابه فمن رآه هابه وأحبه، والكاذب يرزقه إهانة ومقتا فمن رآه مقته واحتقره. وشيخ وهاللي صدقك إيا فائدة أولي رنت إيا فائدة أي ليضح إلهي سبحانه وتعالى قفك صادق إيا رنت بدن وحكو أرزاقيا وصينيا هيبت إن قفك أركاب وكهيبيستو، إن قفك أركاب ووينيو، إن قفك أركاب جعلاضو. laakiin kaadibka oo qofka beenaalaha ah isaga rabbi wuxuu siinayaa ihaano, in la ihaanaysto, in loo caroodo, taasaa isaga la siinayaa. macluumada ibnulqayim wuxuu ku sheegay kitaab la yidhaahdo iclaamu lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin. kitaabkiisa waa kitaab aada u qiimo badan, iclaamu lmuwaqiciina can rabbi alcaalamiin. ayib, fa fi lqalbi sheekhu waxaa kaluu ka hadlay macluuma uu iyadana yidhi qalbigu wuu basaasaa, basaas ayaa qalbiga ku dhacda, mana zuulin karo basaasta ilaa alla subxaanahu watacaala xaggiisa in qofku aada moogi. mar labaad wuxuu yihi qalbigu wuxuu dareemaa waxsha, waa cabsi, mana zuulinaya ilaa unsiga rabbi subxaanahu watacaala markaad cidlo tahay, weheshiga alla subxaanahu watacaala baa lagu zuuliyaa cabsida iyada ah. qalbigu wuxuu dareemaa xusni oo murug ah, murugtaasina ma dhammaato ilaa suruur, inuu qofku farxad ku farxayo bimacrifada rabbi subxaanahu watacaala iyo mucaamalada iyo wixii loo diray inuu sameeyo run uu ka sheego. bimacnaa waa macrifo rabbi oo cilmi ah iyo sidqigii oo mucaamalada ahoo ayaduna camalkii, taasaa iyadana lagu zuuliyaa ee xusniga iyo murugta. macluumadana sheekh wuxuu ku sheegay kitaabkiisii aan hore usoo marnay ee la yidhaahdo madaariju alsaalikiin bayna manaasil iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. ayib, waxaa kaluu sheekhu ka hadlay alhumuumu walgumuumu walaxzaanu. taxsulu alhumuumu walgumuumu walaxzaanu min jihatayn. waxaa la yidhaahdo hamiga iyo qamiga iyo murugta, walwalka, waxyaabaha dadka ku dhacaay laba arrimood, laba meelood unbay mid ka yimaadaan. midda hore waa alraqba fi dunya, jacayl uu qofku jecel yahay adduunyo iyo xirsi uu ku dadaalaya adduunyada, taasoo dee haddaad weydo walwal uu kugu abuurmo. maanta businesski iyo ganacsigii maxaa ku dhacay? ma la khasaarayaa? wax ma la helayaa? ma la dhacayaa? ma kan yacni intaa walwal baa ku jira. marka walwalka ugu badan wuxuu ku yimaadaa adduunyada iyo ku dadaalkeeda ayuu ku yimaadaa. dhinaca labaad uu ka imaan karo walwalkaasi waxa weeye taqsiir fi acmaali albiri waataaca, inuu qofku ka gaabiyo acmaashii wanaagsanayd iyo khayrkii iyo daacadii alle. hadduu ka gaabiyana walwalku wuu iman. waad aragtay oo haddaad waxyaaba aad qaban jirta maanta, jus qur-aanood akhrisan jirta, haddaad aqrin caawo markaa tahay waad walwalaysaa. haddii salaad aad tukan jirta ooda tukanin salaadii, walwal baa kugu dhici. haddaad wax samayn jirta oo wanaag ah, haddaad wax u diri jirta iyo masaakiinta oo wixii aad bilahan aada u dirin, walwal baa kugu dhici. marka daacadii alle iyo wanaagii haddaad ka gaabisana walwalku waa yimaadaa, adduunyo iyo jacaylkeeda iyo ku dadaalkeedana walwalku la yimaadaa. sheekhu wuxuu ku sheegay macluumada kitaab la yidhaahdo cuddatu saabiriin wadakhiiratu shaakiriin. cuddatu saabiriin wadakhiiratu shaakiriin laba maqaam oo aada u weyn buu leeyahay oo ah sabir iyo shukri ayuu uga hadlay. kitaabka dhan arrinta uga hadlayaa arrintaas wey. marka taasoo ku xusay sheekhu. وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. ومعلومة كله وشيخ يري يدنا كبر رجيني dadka waxaa xun buu yidhi qofku inuu
qof wax doonaya inuu bini aadam uu isaga un wax weydiisto, isaga oo heli karaa inuu rabbi subxaanahu wa tacaala weydiisto. oo allah baa wax bixiya, allah baana wax siiya qofka. markas dad badan masay tijaabiyeen iyaga oo rafaaday intay fadhiisteen rabbi subxaanahu wa tacaala inay gacmaha, iyadoona mamnuuc ayna ahayn ama ayna reebanayn in wixii ummaddu dee kugu dhaanto ruuxu uu waxaynka, laakiin su-aashu si ahaanba ilaa bishuruud in la helo ma ogiye, oo ilaa dhowr arrimood la hayo ma ogiye. yani inuu qofku su-aal u noqdo arrintiisu ma fiicna. rabbi baa loo cararaa, rabbi baana la weydiistaa, isagaana ku siinaya insha allah. wuxuu ku sheegay sheekhu macluumada kitaabkiisa la yidhaahdo badaa'icu tafsiir aljaamic lima fasarahu alimaamu ibnu lqayim raximahullah. horay baynuna usoo marnay kitaabka magaciisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala, rabbi subxaanahu wa tacaala hayna kaafiyo. rabbi baa inagu filan. ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa loo cararaa, isaga ayaana rabbi subxaanahu wa tacaala albaabadiisu furan yihiin.